رادين إنه أنصحينه هل قضب بأكل شيء قضب كسجلات كهالليا بنك كنعسية مساجد العشاء اللي جاء أخريه حير لكيني والله أنصحينه يعني ما تشيل لكن وحنا كل أجنديه لبنا أنصحينه إلى لقلت الشذوذ علماء لقلت الشذوذ سيد هياي ما معارف قاعدين كرسي كذا وافسيره كل كذا آيات قرآن إنك بدل هو كافر وملعون سلا هكو عضاته كتابك إلهي إنك بدل آيات قرآن فهو كافر وقال عدويا بقول يا أفر يتوانك سورة إلهي سودي شيء إلا المحفوظ كو قرن أي كو قرن تهي إلى الربا حاران تهي شرع الدنبو الله يقول لقون هايو يا سلف كي صالحين تاها يا إمالي إسلامك مد أقلاني مجرو وارما أفرتن مركا ليلها وعضايا محوها إيربورك وعضينا يا قولنك قادنا يا ميا لمقلي مايو تي إلهي باسقونا يسوانا حق من نوادي كردينيا لما كان رير يربوي بدلن أرنكي إمك waxay sameeyeen waxa koonayaan aqalkaasaan ka iibinayna waana ribana male intaasaad bixinaysa hadeegada waxay fahmeen wixii hortaagnaa islaamka aqalkaasaan ka iibinayna waa $50,000 ribana malaha bay koonayaan islaamka Yurub joogana ma wada qaatay labadan baanay halkan ka joogay 13 lagu marmarsoonaya wixii muslimka ku dulmi waa xaraan muslimka wixii dusha laga saaraa waa xaraan maqtaca weeyaan wadankuna wuxuu leeyahay wasaaradda la yiraahdo wasaaradda diinta iyo awqaafta adduunka ilaahayna wuxuu leeyahay muftin la yiraahdo muftigaas imka madaxweynuhu nin baa loonayaa hal la joogto isaga saxiixa wada sharci ma aha waa inuu muftiga islaamkii ninka la dilaayo marka hore uu yiraahdo diintii waafaqsan tahay waa in la dilaa waa in mufti la sameeyaa muftigu imika waxa weeyaan wasaaradda diinta iyo awqaafta ha keeno waraaq isagu uu leeyahay golaha arrinkaas waa xalaal ee fuliya hadduu keeni waayo waxay ku soconaysaa dastuurku iyo ilaahay iyo sidii dastuurku yiri dastuurku ma ogola nimanka qaylqaylinaya hadii aan halkan laga soo siin lahaa way sameey lahaayeen lamana ogola mana ogolin ilaahayna ma ogola a'immadii islaamkuna ma ogola dastuurkuna ma ogola wassalaamu calaykum xeerkan maanta golaha la hor keenay ee ajanda lagu soo daray wali ajanda la marayaa ee wali horta xeerar golaha la soo dhigay ma jiraan xeerkani marka hore waa xeer markuu golaha soo galay guddi baa loo dhiibay guddiga loo dhiiban kamid aanu culimada wadanka joogto oo dhan baanu isugu yeedhnay waan kooxo kala lahayn waan yar iyo waaweyn kala lahayn fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun wax walba cid baa taqaano ilaahay cilmi u siiyay diinta ilaahay dad buu diro ilaaliya dadkii aqoonta u lahaa baanu yeedhnay xeerkan ka warrama waxay cadeeyeen warqad 8 beej bay soo dhiibeen oo fatwa ah waxay cadeeyeen xeerkani inuu yahay xeer riba ah shareecada islaamkana uu ka hor imanayo dastuurkeenana qodobo cadaynaya baa ku jira dastuurka wixii ka hor yimaada wadankan sharci u noqon maaya isla markaa wixii shareecada ka hor yimaada lama qaadanayo waa la tuuraya xeerka qodobka ribadana laftiisa dastuurku si cadaana buu u sheegay inaan la ogolayn in wadankan laga furo bangiyo riba haddaba maanta qodobada halkan ka dhacay ajande dhan ogolaal loo ansixinayay ayaa waxa la dhexgeliyay in lagu daro qodobada ajandaha qodobka ansixinaya xeerka bangiyada ribada arintaa horta waxa marka koodan uga digaynaa shirgudoonka oo khaladka wada shirgudoonku iyaga ku soo daraya xeerkan mar walba
iyagoo awoodi karaya inay gaar ugu codeeyaan oo xildhibaanada diidanaa ay badnaayeen ayay waxay ku dhex darayaan qodobadii kale ee ajandaha la ansixinayay waa khalad waddankana uma baahna ilaahay dagaalkiisa uma baahna ilaahay subxaanahu wa tacaala waxyaabaha dunuubta uu ku ballan qaaday inuu la dagaalamayo cidda samaysa ribadaa kowka yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha wadaruu maa baqiya min alriba in kuntum mu'miniin fain lam tafcaluu faa'danuu bixarbin min allaahi wa rasuulih haddii ribada aa iska dayn weydaan u diyaargarooba oo ogsoonaada dagaal ilaahay iyo rasuulkiisa calayhi salaatu wasalaam dagaal ilaahayna cidina ma geli karto qofka ilaahay dagaal la galaa ma noolaanayo war iyadoo maanta ay abaarayna haystaan oo dunuubteenni maanta ayna cuslaysay oo dhibaato badan ina haysato halkaynu ilaahay u noqon lahayn haddaynu dunuubtii aynu sii laban laabno waa mashaakil waxaan loo baahnay golahayna sharci buu leeyahay horta golahan wakiiladu wuxuu wakiil ka yahay dad muslimiina boqolkiiba boqol xeerar gaaladu ay soo waariday oo waddammadoodiiba ay kaga quusteen oo innaga ilaahay inoo sii sheegay yamxaqullaahu ribaa wa yurbi sadaqaat inaanay ribadu marnaba lagu liibaanin laakiin sadaqaadkii waxyaabaha wanaagsan ilaahay uu koriyo ilaahay inoo sheegay ma aha in golahan lagu camcamiyo halkan waxaan uga digayaa anugu shirguddoonka golaha oo baalmarsan shuruucda goluhu ku dhaqmayo anugu kala guri maayo shirguddoonka hadday guddoomiyaha tahay iyo hadday guddoomiye ku-xigeenka maanta hagayay golaha tahayba waa khalad in golaha ay sida ay doonayaan iyagu ay wax u marsadaan waa in golaha marka xildhibaanadu wax diidan yihiin ilaa gacantaag baa lagu kala baxayaaye waa in qodobka laysku hayo gaar loogu codeeyaa maaha in la dhex geliyo badweyn kale oo mid ogol iyo mid diidaniba uu fadhiyo xeerkanina waxa weeyaan maanta dee xeer la ansixiyey ma jiro filina maayo golahan inuu ka soconayo culimmaduna way ka digeen way ka yimaadeen xaqna way u leeyihiin dastuurka waxa khilaafsanina hadduu xataana jiro maxkamaddaasa laga soo celinaya ma soconayo dad islaama baynu nahay dastuur baynu dhigannay shareecadeennu ku kala baxaynaa wixii iyada khilaafsani war ma waxaynu imanka ansixinay haddaannu u gacan taagno raggu ha isguursado ilaa waxaasaa laynoo soo dhigayaa beritane oo waxaas inu markaa yeelanaa inu aqballa lama aqbali karayo sharcina noqon maayo saxna maaha waxaad arkayseen saaka buuq fara badan oo nagu dhacay oo golaha iyagii ka dhacay buuqaasi wuxuu ahaa horta hadda ajandihii buu ahaa ajandaha waxaa ku jiray qodobka 8aad oo ahaa bangigii ganacsiga xeerkii banka ganacsiga xeerkaasi mudduu golaha hor yaallay muddaannu hor taagnayn sababtaannu hor taagnayno kolba guddi baa loo saarayey guddi walboo loo saaraabana waxay nagu soo celinaysay iyada oo magac kale u soo bixisay ribadii oo magac kale leh xeerkii ku jirto ribada ilaahay baa kitaabkiisa ku diiday dastuurkeennuna wuxuu yidhi wax allaala wixii shareecadda islaamka ka hor imanayaa xeer ma noqon doonaan oo waxa weeyaan dee suuragal maaha sidaa daraaddeed waxaannu diiddanayn shirguddoonku waxay ku gafeen xeer hoosaadkii waxay ahayd inay gaar ugu codeeyaan qodobka la xidhiidha ajandaha ee ribada bangiyada marka waxa weeyaan qodobkaa 8aad in lagas gaar loogu codeeyaabay ahayd oo la yidhaahdo inaynu ku darsanno ajandaha iyo in kale goluhu ha u codeeyo wayna jiirsiiyeen oo waad arkayseen waxaannu cabsi ka qabnaa inay berritana na jiirsiiyaan isaga ummadda waxaannu leennahay war xeerkaasi waa fidno xeerkaasi waa dhibaato xeerkaasi waxaa ilaahay yidhi qofka ribada cunayow dagaalkaygiiyo ka rasuulka u diyaargarow waxa weeyaan wax yar maaha waa arrin aad u culus sidaa daraaddeed waxaannu bulshadana uga digaynaa in ay gacan siiyaan dadka oo iyagoo qaabab kale ku raacaya dadka ribadaa wada inay gacan siiyaan culimmadana waxaannu ka codsanaynaa inay nagu gacan siiyaan waxa la yidhaahdo sidii ribadaa sidii dalka looga qaban lahaa mashaakilka kow qolyaha baananka kale ee hadda u furan yihiinna waxaannu leennahay nidaamka muraabaxada ee aad qaadaan idinkuna dib u eega waxa weeyaan nidaamkaa waa inay culimmadu dib u eegtaa dadku waxay ka qaylinayaan waxay leeyihiin kuwan laftooda riba qaada sidaa daraaddeed iyada lafteedana culimmada waxaanu doonaynaa inay dib u eegaan iyaguna ay golaha hor yimaadaan oo caddeeyaan waxa ay qaadaan